قفك مالك حرام تأه عادة كدك تأعنا صدح عقوبة أيها هيسته عقوبة الدنيا أيو الله كل مياه عقوبنا قبرك وكل كل مياه عقوبنا آخرة أي سجيس سفي عنه لجيس هذا لالوش قادتي هذا رشوة قادتي هذا الحول بينكو قادتي ده حوله هذا الوحن صحة هين ده كوقري سوكو خيانتي هذا بدك جيس صدح عقوبة أياك سجاي الدنيا عقوبة كوكو سجيس عقوبة سي الدنيا وحويان إن إلهي مالكي سخساري أو بابئيو مالكي بقبنا هي إلهي با ترتره هي بركدي با لغا قاديا وحي وابديه نعفنا مله وحي وابديه عدينا ما ديقان إلهي سبحانه وتعالى إنه كل جيس كاترتره يا إن waxa weeyaan adoo gacanta ku haysida u jeedi ku deeqi waayo barakada laga qaado waxay kala noqon kartaa cuquubada adduunyadu cuquubatan fi jasadi cuquuba ilaahay jasadkaaga iyo xibnahaaga ilaahay ku salido ilaahay inuu cudurku ku salido ka kici weyn ahalkaaga ilaahay inuu ku salido wax alla wixii xaraan aad daldalaysay waxayba kaaga dhamaanayaan isbitaal iyo dawo iyo diyaarad ina ku raacido caafimaad ku raadis bay kaaga dhamaanayaan cuquuba ilaahay ba ku haysta nin ayaa wuxuu ahaa nin xoolo badan dadka qaaday xoolihii uu ka qaadayna ka khiyaanay daara badanna ka tabcaday markii dambana cudur baa ku dhacay meel kasta ayuu aaday oo maray dawadiisa wax sheega la waay wax allaaliya wax dawadiisa sheega waa la waay meel kastana waa ka raadiyay dawadiisa inuu xoolahan xaaraanta asagu dadka dhacay oo khiyaanina waa u yahay cudurro ayaa kugu dhacaya haddaad xaaraam aad qabtid oo ogow ama ahalkaaga aad ku bixinaysaa baabi'inaysaa cuquubada qabriga wuxuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wa sallam waxaa jiray maalintii khaybar nin adoon ahaa oo saxaabi ahaa oo nabiga sallallahu alayhi wa sallam u khidmaynayay meel baa inta la degay markii laga soo dagaalkii khaybar uu dhacay oo qaswadii khaybar waxa weeye xoolo badan laga qaaday gaaladii ayaa ninkaasi wuxuu qaatay midcam ayaa la oran jiray wuxuu qaatay go' ka mid ah xoolihii qaniimada ahaa go' ka mid ah ayuu qaatay oo weli aan la qaybin intaan la qaybin buu la fiicnaadoo qaatay asagoo jooga ayaa waxa weeyaan waxaa ku dhacay leeb iyo gantaal cadowgu soo riday baa ku dhacay maruu ku dhacayna waa dhintay waa saxaabi nebigu u khidmaynaya sallallahu alayhi wa sallam gaala ayaa dishay intaasaa iskugu darmay markaasay saxaabadii waxay yidhahdeen hanii'an lahu aljanna hanii'an lahu shahaada ninkaani waa nin ahlu janno ah oo janno helay weeye waxay ugu boogaadinayaan oo ku faraxsan yihiin inuu cadowga gacantiisa uu ku dhintay saxaabina uu ahaa nabigana khaadim uu ahaa janno ayuu saas ku helay bay yidhahdeen shahaado ayuu helay ninkaas nebigu markuu maqlay buu yidhi kallaa maya والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا إلهي بان كدارت له مرضي قاضي مالنتي خيبر intaan la qaybin ka hor uu qaaday go'i ayaa qabriga dhexdiisa ku gubanayo ku holcahayo ayuu ku naarayo ku cadaabaya ninka sidaas ahaa qabriga ayaa lagu cadaabaya asagoo fadaaishaas oo dhan leh ayaa qabriga lagu cadaabaya
waa go uu qaaday baa lagu cadaabaya dadkii markii ay maqleen ayaa qof walba intuu naxay oo argagaxay ayuu wuxuu hayay soo qaado iska keen saxaabada rag baa waxay keeneen shiraaguna waxa weeyaan kabta suunkeeda weey kabta suunkeeda meesha hore ah laba suun ama hal suun ayaa saxaabo qaaday ay iska keeneen oo yiraahdeen waxaan wax lagu baxsanahay maba ahaba markay nabiga u keeneen baa nabigu wuxuu yiri shiraakun aw shiraakaani min naar waa suun naara ama waa laba suun oo naarahay ogaada aad qaadeen hadayna iska keeni lahayn naar ba ku guban lahayd waa dhowr dirham jooga ayaa saxaabi dhan waxa weeyaan cuquubadii qabriga u qabsatay maxaad u malaynaysaa leeyla wa nahaaran ragga laaluushka guranahaya hay-adaha khiyaanahaya wax ummad loogu soo dhiibay oo la yiri siiya leylan wa nahaaran aanu aabayeelahay maxaad u malaynaysaa kuwa codadkooda beenta ku iibsanahaya oo aqligooda iyo xikmadoodu ay noqotay waxay halkaa kaliya mariyaan maxaad u malaynaysaa kuwa waxa dhacay dawooyinka dhacay umada u keenay maxaad u malaynaysaa kuwa dhaqaatiirta ah oo digtoorada ah oo falsada ah waxba aan aqoonin oo waxaynan aqoon umada ku dabiibayo sanka u gelinayo maxaad u malaynaysaa kulligood waxa ay jamcinayaan oo aruurinayaan waa xaraam dadka waxooday baadil ku cunahaya mana baxsanayaan ogaada ilaahay agtiisa cuquubadaasi adduunka waa haysataa qabrigana waa ku sugaysaa qiyaamana waa ku sugaysaa ama qiyaamaha wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa sallam ya ka'ab ibn ujrah ayaa nabigu la hadlay innahu la yarbu lahmu nabata min suhtin illa kanat an-nar awla bihi ma jiro qof hilibkiisu ku barbaaray xaraan qof xaraan ku koray ma jiro illa waxa weeyaan naarta ilaahay uu ku haboon yahay oo qiyaamaha naarta ilaahay baa looga goynaya ama xaraan ku naaxo ku cayil ama ilma ku korso ama dabaqiye daara ka dhiso ama umada sun u keen ama mukhadaraad iyo darooga ka iibi kulli waxa sugaya cuquubada qabriga tii aakhira sugaysa kulli waxa oo ku sugaysa qofka xaraamta cuna waxa lagu cuquubeeyaa adduunyada ducadiisa lama aqbalo nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ilaahi wa tayyib wa wanaagsan ya wax aan tayyib ahayn ilaahi ma aqbalahay wax aan wanaagsanayn oo aan tayyib ahayn ilaahi aqbali maayo markaas nabigu wuxuu ka sheekeeyay nin musaafir ah oo booraysan oo basaasan oo ilaahay baryayo gacmaha kor u taagaya oo oranaya rabbi ya rabbi ya rabb ducadiisina aan la aqbalahayn waa musaafirka ducadiisa waa mustajaaba waa la aqbala qofku markuu basaasan yahay oo dhibaatadu ay ka muuqato asbaabaha ducada looga aqbalay ka mid tahay markuu gacmaha kor u taago ilaahay uu baryahayana asbaabaha lagu aqbalay ka mid tahay gacmaha in kor loo taago laakiin lama aqbalin nabigu wuxuu yiri mat'amuhu haram wuxuu cunahayaa waa haram ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام هذو حاران عني أو حاران عبي أو حاران دوب صدي فأنا يستجاب له سيدو على الله أقبليا أسقى بحجاب كوجو يدعاديس مركز توحى لقيا إلهي بطوق يسا دعاء هذين أركي ميس ويدي سيدي مورا على واحد عنتد ماشي أي كي ماذا يوحى أيهين ميس ويديس والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رجل شاقة وقال رجل اسك الضبالنا يا حاران ومالك إلهي دح الضبالنا يا حق لعانكم دح الضبالنا يا مالك عامك أي دح الضبالنا يا مالكاسي waa caam ama ha ahaada mid umada dhan ka dhaxeeya ama mid shakhsi gooni u leeyahay yatakhawaduna fi maal illah maalka ilaahay bay ku tasarrufayaan bigayri haqqin haq la'aan bay ugu tasarrufayaan
فلهم النار يوم القيامة بقى النبي صلى الله عليه وسلم نار بيليهن قيامها رقاس نار أي ليه دتكاس النار أي قيامها ليه بل واحد في رسالة صحابة النبي إيا دتكي سلف الصالح أها تابعينتي يا تابع تابعينتي دقن كودو سيدة تنميوها ما هي عمر بن الخطاب وحو ليه كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام حلاشا لفتيجا طبعا مرك الله دغو سغال كميده ka tagaynay waa xalaal toban baa u qaybinayna sagaal kamida ka tagaynay maxaan uga tagaynay inaan xaraan ku dhacnaa ka baqayna intay xaraani soo dhawaan lahayd xalaashaan oo dhan ka tagayeen oo ahaan jirta Abdullah ibn Mubarak wuxuu yiri li an arudda dirhaman min shubhatin hal dirham oo shubha oo xalaalnimadkiisa shaki iga galay in aan diido oo iska tuuro ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 100,000 waxaan kaga kalsoon oo ka jeclahay inaan sadaqaysto 100,000 oo dirham inaan sadaqaysto oo xalaal ah 100,000 oo dirham oo xalaal ah inaan sadaqaysto ya hal dirham oo aan ka shakiyo inaan tuuro waxaan ku kalsoonahay halka dirham oo aan ka shakiyo inaan tuuro ayaan jeclahay Sufyan ibn Uyayna wuxuu dhihi jiray man anfaqa al-harama fi ta'a fahuwa kaman tahhara thawba bil bawl qofka xaraam bixinayo ku bixinaya taacada ilaahay masaajid buu ku dhisaya dugsiyuu ku dhisaya xajkii buu ka aadaya sadaqa ayuu ka dhiganahaya oo masaakiinta siista ayuu sadaqaysanaya waana xaraam wuxuu la mid yahay qofkaasi qof mara dhaqahaya oo oranaya kaadi baan ku daahirinaya maradan kaadi wala yutahharu thawb illa bil maa maradana laguma daahiriyo waxaan biyo ahayn wadam la yukaffiruhu illa al halal dambigana ma tirtiraayo illa halal mooyaan qof maanta oo dhan mara daahirinaya oo kaadi ku daahirinaya miyay soconaysa waxa uu bixinayo xaraamta oo leeyahay taacad ilaahay baan ku bixinaya taas ayay la mid tahay وإنان أغانا ولا ليال إمسان عني كرنا حرام هين كرنا مركا أدوه كدمتيد وكتكتيد المها قاعدتو هذا حرام كماها صير رمان بيقول تصرفايا أديقنا عقابتو دي عذابكو دي واقوايستا أيقونا سي الله لي سيدا أي رمان بيقول تصرفايا انت مالكاسي سي صعدانا وباقي سي هينا وحويان دنبقي سي قبرقا أيوكو وصعدا قيامنا وكسوغا هيا وحويان فخر كعر حارنا وقعد إلهي أكتس وحا هذا اللي قمر رادين كره إلا طاعة إلهي مويان فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إلهي كعر صدى أيها النبي يقولي وقابك وحوض البيسان قرحية طريقة وحكور هذه الإنسان طريق الحونا أهاد وحا أكشك يسيد محلال بامسا وحارام أهل العلم قويديه هكذا بخيل اسكهو بصو ماتا ايا ادوية شوكتا ماتا ايانا بنان كباركتا وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم وقال قفك إذن كم إذا يينن كحن بارن رزقي أو ضاه صدي إنه طريق حارانا كرادي فإن ما عند الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته إلهي أكتي سوحا أهاري طاعتي سايا لقول هذه طاعة إلهي بالقول هذه لقول مرة هذه طريق حرامة اسكده وحلنا يقفك السيجار كجراه والسيجار كجنا عصنا هيا إلهي هكاد يقوى الصن وأنا حرام ضرر إيا مصيبة أيو ليهي خبائث أيو كبديهي إلهي يقطوبتك إلهي نوحن كوي دينينا هداد ما أنت قرآن كاقالتد وإلهي يقطوبتك أنتد إلهي مالك لنو كاديقو وإلهي غني كاديقو نينك شاتك قلاه oo fasaadiyay ummadaas oo dhan baabiyay oo noloshoodii caafimaadkoodii dhaqaalahoodii ku qabaaray waxaan leenahay inta kaaga ekaato ilaahay uga toobadkeen
waxaan kuugu ducaynaynaa faraj fiican oo xalaal dayiba ah oo aad sadaqaysan kartid oo aad xajka ilaahay ka aadi kartid oo masaakiinta aad siin kartid oo masaajid ka dhisan kartid ilaahay subxaanahu wa tacaala bedel khayr qaba oo degdega allaha ku siiyo ee maanta ka toobadkeen ninkan laaluushka qaadanaya midka hay-adaha ka dhacay masaakiintii lagugu soo dhiibay u celi bedel khayr qabana ilaahay ha ku siiyo subxaanahu wa tacaala اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.